Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale waxa ay war ka soo saartay xiriirka Taiwan iyo Somaliland oo horseeday in wakiillo isweydaarsadaan isla markaana maalnimadii shalay oo Isniin ahayd ay xafiis ka furato magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa si weyn waxaa loogu cambaareeyay dhaqdhaqaaqa Taiwan ee Somaliland kaasi oo ku xadgudub ku ah madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa meel adag iska istaagtay heshiiska Taiwan iyo Somaliland ee horseeday in xafiiskaasi ay ka furato magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoo ula dhaqmaysa sida dal madax bannaan xilli uu caalamku u aqoonsan yahay Somaliland inay qayb ka tahay Soomaali weyn inteeda kale. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay cambaareynaysaa isku dayga Taiwan ay ugu xadgudbayso qarannimada Soomaaliya iyo sharafkeeda dhuleed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diidaysaa dhaqdhaqaaqa qaldan ee lagu raadinayo in is-afgaranwaa iyo kala qaybin loogu dhex abuuro shacabkeena. Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay u taagan tahay sidii ay u ilaalin lahayd qarannimada, midnimada dadkeeda iyo sharafkeeda dhuleed. Bayaankan ayaa waxaa si cad loogu baaqay Taiwan inay joojiso faragelinta ay ka wado Soomaaliya waxaana dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin ay uga hortagayso dhaqdhaqaaq kasta oo lagu waxyeeleynayo midnimada Soomaaliyeed midaasi oo qayb ay ka tahay midda ay Taiwan ka wado deegaanada Somaliland. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay sidaa daraadeed ay ugu yeeraysaa Taiwan inay joojiso howlaheeda marin habaabinta ah ee ay ka wado qaybo ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Mabaadi'dan waa kuwa aanay gorgortan ka gali karin dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya. Waxaana lagu soo gabagabeeyay bayaankan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay qaadaysaa tallaabooyin laga maarmaanka ah ee waafaqsan qaanuunka caalamiga ah si loogu ilaaliyo midnimada qarannimada, wadajirka sharafta dhuleed iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya. Taiwan iyo sidoo kale Somaliland ayaa xiriir diblomaasiyadeed waxa ay yeesheen horaantii sanadkan 2020 tan iyo markaasna waxaa sii kordhayay calaaqaadka ka dhexeeya labadan dhinac oo aan haysan aqoonsi caalami ah. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV.